khilaafa naga dhaxay xitaa waalidkeed waa u sheegay oo leedahay gabadheen dadka waday mas'uulka ilaa xamar laga imaana ma la hadli karto wax ma dhigi karto waay aniga leegu eedeena adeer dhaldhalaalkaas aad arkaysid iyo quruxdaas iyo labiskaad rag baa maalgashtay nin rag baa maalgashtay oo hantidiisa ay ku maqan tahay mid kale ninka la yiraahdo Shiino Culey waxaan leeyahay adeer adiga naagaha la qabo maad ka qaraabata ama saadaba joogta maslaxo Saalax Suleymaan aniga waa xaaskeyga waan qaba agta dad baa xaansho u malay balse xaansho ma ahan si xun wax u fahan sixir waa ka darayaan dhammaan waxaan ku dacweynayaa waalidiintooda inay iga qabsadaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qof walba muslim ah waxaan halka rabaa inaan ugu cadeeyo horta fariintan haday ku soo gaarto like saar oo saaxiibada u share gareey anigoo ah Cabdiraxmaan Buwaal Maxamuud Catooshare ahna wasiirka dhadhamiska maalmahan arin social media haysatay ayaa rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed hadalkeygii ugu horeeyay hadalkeey ugu dambeeyay aan halkan ka dhaho aniga nin rag baan ahay go'aanka aniga ayaa gaarayo maslaxo Saalax Suleymaan aniga waa xaaskeyga waan qaba raggan isku soo sawiraayo raggan dulmiga wado raggan buuqa wado raggan isku dirkama wado dhammaan waxaan ku dacweynayaa waalidiintooda inay iga qabsadaan mid kale ninka la yiraahdo Shiino Culey waxaan leeyahay adeer adiga naagaha la qabo maad ka qaraabata ama saadaba joogta lagu arkaba naaga ayaad ku dhex jirtaa walaal ilaahay ka cabso dulmiyaad igu haysaa dulmiga daaya ummadda Soomaaliyeed beenta aad u sheegaysan ama aad ka gadaysaan daaya naagteyda aniga ayaa qabo haween waa qabaa maalin waa qabaa diinta islaamkana ii ogolaanaysa inaan qabo marawo inaan hadallo kale aan dhaho waayo maxaa yeelay anaga waxaan ahay muslim qof walba oo muslim ah wuxuu dareemi karaa in arintan ay foodo dad wada ay jiraan fiyuuska iyo arsaaqadana ay ka soo galeen waxaan leeyahay maslaxo Saalax Suleymaan xaaskeyga waaye mana rabo in caaba kadib aan soo fadhiiso Soomaaliya waxa marqaati ka noqonaysa inay xaaskeyga tahay maslaxo Saalax Suleymaan aan aniga qabo aan furin ay jiraan dad cadow ah dad magacay ugu la dagaalayo dad dagaala kale uu soo qaadayo kuwaas oo ka xun horumarkeyga kuwaas oo ka xun guusheeda adeer dhaldhalaalkaas aad arkaysid iyo quruxdaas iyo labiskaad rag baa maalgashtay nin rag baa maalgashtay oo hantidiisa ay ku maqan tahay maantana aniga ma doonayo gurigii aan intaas oo sano soo dhisay inaad si fudud aad ku dumisaan waayo waxa lahay lacagta dad baa xaansho u malay balse xaansho ma ahan si xun wax u fahan sixir waa ka darayaan hadal dadeed waabtaadu ka bixay waabtiisana kuma gee dhammaan ummadda Soomaaliyeed caawa kadib arintan kama hadlay waxaan idin sheegayaa inaad la socotaan ina maslaxo Saalax Suleymaan aniga aan qabo hadalkeyga ugu horeeyay iyo hadalkey ugu dambeeyna uu yahay xaaskeyga aan qabo magafo waa ilaahay dadaa waxay dhaayeen Catooshow naagta muuqaal khaldana xasatoob uu ka duway malis weydinay sida uu wax u dhaceen muuqaalkaas qalad ma loo maleeyay laakiin qaladka wuu dhacay qofaan qaldameynina male muuqaalkaas marka la duwa xataa aniga iyada khilaafa naga dhaxay xitaa waalidkeed waa u sheegay oo leedahay gabadheen dadka waday mas'uulka ilaa xamar laga imaana ma la hadli karto wax ma dhigi karto waay aniga leegu eedeena mas'uuliyadda markaas leega wareejiyay oo leedahay aday dhaqankeeda leedahay dhiigeeda ma leedid waxa mas'uulka dadka wada leedahay intaas oo dhan aan u dul qaadanay waayo maxaa yeelay wax walbana way dhacaan wax walba oo dhacay maladaasay u dhacan horta dadka Soomaali waxaan leeyahay aqligiina iyo garaadkiina xisaabiya waxasay u dhaceen Allah maahina maxaa u dhaceen malo qofaan qaldameyn waa Allah qof walba oo adduunka saaro uu qaldama hadii aad leediin ma qaldama nin inaagtiisa colna ma aan heshiisna ma ahan Soomaaliya waxa marqaati ka noqonaysiin in maslaxo xaaskeyga ay tahay wiilasha Soomaaliyeed iyagana foodada iyo fasahaadka wado diinta islaamka ma dhigaysa naag nin qaba nin kale inuu guursado ama xitaa uu la sheekaysto diinta islaamka ma dhigayso Soomaaliya ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada dadkaas dulmiga iyo foodada iyo qoys burburka wadana
waxaad markhaati ka ahaanaysiin inay iyaga ay u koolbato aana wax walba soo baxo inaad sidaas la socota insha Allah. waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna Facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.